السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا يقدمانتي وايد السلام يا ويوتيوب ومقالد ويا دمانتي ولا ليا الميلة شوكتان با وايد السلام يا الله هدي السلام يا لا الدنيا أقربا. انتي مالين وطاي انتي همين وطايبا ومالين أحد ويا بشونا وحنا ملان يمانتي إني تضبط إني تاي بشي كوي تبناد إني waxaan leeyahay bishii 11 maanta inay tahay baan u maleynayaa 26 inay tahay 27 midkood weeye waa bishii 10 yaana wax isku qalqaldin waa bishii 10 baa maanta 26 27 inay maanta tahay bisha muslimkana maanta bishii saddexaad baa maanta waxay tahay baan waa 7 inay taan u maleynayaa دمانتي ولا ليال وايد السلام يا انت كحرا يوتيوب ومخالد وايد السلام يا الله يد السلام يا لدمانتين وحان ربا او اندبا جوغا كليبكي مره ويد ان كهادلاyo iga go'ay inaan kamilkiisa idin kamilo hadii alla yiraahdo ayaan rabaa walaalayaal dhammaantiin ilaahay horta meel aad joogtaan baa idinku nabadgeliyo hana idinku xafido adduunkan dibtiisana allah ayna ka xijaabo ilaahay inoo nabadgeliyo intaan ka naxnoo dhan caruur ha ahaato waarid ha noqoto ehel kale ha noqoto qaraaba ha noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo xafido hana inoo ammaaniyo annagana allah ina ammaaniyo meelan kasto aan joognaba adduunkan waxa weeye wax walba waa la arkaa waxaan la arkin waxa weeye waxa leeyin baa waxa laga sheegay indhihii dhiman waa geel dhalahayay ku tusaan midhaawamidaan aragba weligii geel dhalayaan u maleynayaa saasaan u qaatay dhammaantiin walaalayaal ilaahay haydi salaameeyo hana idin badbaadiyo hana idin xafido hana idin caafiyo insha Allah adduunka waxa weeye waxa loo dhimanayaa ama qofka bilow aadanka dhibtiisa oo dhan waa inuu jirrado waa inuu tacbaano waa inuu dhinto aakhirka dhib kale ma jirto waa inuu nabadgelyo heli waayo waa inuu jirrado waa inuu na dhinto intaas ba ilaahay baan ka magan galaynaa adduunkana ilaahay waxaan weydiisanaynaa wax qeyr qabo oo adduun iyo aakhira baan ku faraxno jannadii firdawsahayd oo calaahid baan alla weydiisanaynaa wixii dhibana allahayna ka hayo cudur iyo muxuu hayto iyo baqdin aan ka baqno meeshaan ku noolnahay allahayna ka hayo intaasba ilaahay idankiisa dhammaan marka walaalayaal intaas haddaan ugaga soo haro salaantii inta haddaan ugaga soo haro maanta waxaan rabaa mawduucii hore aan ka hadlay inaan daba joogaa oo ah maanta adduunka tan ka jirta oo dhibaatada badan oo ba'an adduunka ku haysa waxa weeye walaalayaal oo hadda bilowgeeda aan rabaa inaan idin bilaabo waxa weeye horay waxaynu ahayn aabba iyo hooyo wanaagsan baa ina soo dhalay ehel baan lahayn waarid baan lahayn ama hooyo ha ahaato ama aabba ha ahaato ama eedda aabba la dhalatay ha ahaato ama habaryar hooyo la dhalatay ha ahaado abti hooyo la dhashay ha ahaado adeer aabba la dhashay ha ahaado qaraabo kale oo sii dhaldhashay oo la sii dhaldhashay oo min adeer oo min abti oo min awow oo intaasoo dhan baanu lahayn markii caruurnimadeennii oo ilmanimadeeniina waad ogeydeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala alxamdulilah waxaanu ahayn dad waaridkood maamulo baanu ahayn waaridkaana maamuli jiray aabbahana maamuli jiray hooyadaana maamuli jirtay eedadaana maamuli habaryarta ehelka ilmo la dhalay baanu ahayn si kale kuma garataana waxaanu ahayn ilmo la dhalay laakiin hadda bedel baa yimid wax bedelay sidaas oo dhan baa timid diintu ma bedelinin dhaqankii waaridnimaduna ma bedelin laakiin ma ilmihii baa bedelan bay idinla tahay taas waa su'aalaan rabaa inaan idin weydiiyo mase waaridkii baa bedelmay oo waaridkii baa bedelmay miyaa ma garanayo mase annagaa waarid kayagii oo kale aan ahayn oo bedelan miyaa ma garanayo waa midaan su'aalahan rabaa inaan ehelka Soomaalida walaalaha codkayga garanayo oo dhan inaan su'aashaas ay iiga soo jawaabaan ayaguna ay wixii maaragtaa ka qaadashada ay ka qaataan anigana wixii iga dhiman inay ii soo sheegaan taas waxaan uga dan leeyahay intaan galinin warkaas oo dhan waxaan uga dan leeyahay aniga dhib ay haysata maahan Soomaalidu qofka wuxuunbay gadgadiyaan anigu hooyaanahay caruur baa ii joogta ayeeyaanahay caruurtayda caruur leh
alxamdulilah wa shukri lilah waxaan ku dhalay wadan muslimahan ku dhalay dhib badan oo hadda sidaa u badan igama haysato oo aan ahayn macnaha ilmihii madaariskii hadda canabucud laga dhigay waxyaalo uun sidaas oo canabucudkaasoo dhibaato oo waxa weeye dee caruurta aan daakiraynino lagu mashquuliyey in jawaalada iyo waxaa lagu mashquuliyey oo dhibaato taas dhib bay annagoo dhan caam ahaan bay dhib nagu tahay oo waa wax dhib ahaan dhib nagu ah sababtoo waxa weeye caruurtii oo daraasadoodii markii horeba lala tacabsanaa marakan haddii la yiri waa canabucud oo jawaalada laga daakirayaa jawaaladan waa wixii markii horeba caruurta haleeyay mana ka daakirayaan intii halkaa la dhigo ninkii oo hadlaya ama ninka naagtii oo hadlaysa ayaan waxbaba la daakiraynin taas waa wax majmuuc adduunka oo dhan haysta weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurkan baana keenay allah ina ka saaro isagaa raxmaan oo raxiime haddaan u soo noqdo oo warkii aan rabay inaan maanta ka iraahdo waxa weeye ilmaha waxaa la arki jiray caruurtu aabbaha markaan ka bilaabo aabbaha caruurtiisa waxay u dhaxeeyeen aabbaha iyo wiilkii markaa ama roon ama gabadhii markaa roon iyo shaqadii xoolaha odagu hadduu xoolo baadiya degan yahay xoolaha jooga caruurta iyo xoolaha waxa aabbaha iyo xoolaha waxa u dhaxeeyay caruurta geel baa la aroorinaya wiilka hore u boodi jiray aabbaana aroorinaya hadaa la dhaaminayo aabbaana dhaaminaya markaa wiilka hadduu nin kuraya yahay oo nin maaragtaa uu awoodo yahay waxaan u malaynayaa magaalada haddii la joogo haddii meel dukaan ama wuxuun laga shaqaynayo aabbaana kasoo shaqaynaya aabbaana aadaya aabba maxaan qabtaa aabba maxaan yeelaa inay jiri jirtay baa laga yaabaa oo intaa loo kici jiray intaa wiilku aabbaha ka hormar jiray aabbuhuna uu ahaa kormeere warmaandhow maxaad samaysa aabbuhu ilmihiisa jecel yahay oo ilmihiisa ku kalsoon yahay ilmuhuna aabbahood jecel yihiin oo ay ku kalsoon yihiin aabba maxaa samaysa maxaa maanta laydinka gata maxaa qabateen aabba saasaan qabanay aabba saanaan yeelna aabba waa kan aabba inay dhihi jiraan oo jeclo dheeraada ay jirtay gabadhu inay hooyadeed iyo u dhaxayso xoolaha guriga maamulka inay gabadhu iyo hooyada iyo guriga iyo reerku inay gabadhu u dhaxaysaad moodi jirtay waa sidaa anigu ku soo koray maandhay xoolihiisa ay yeeshay arigii ma soo listay badarkii ma noo karisay gurigii magaalaha hadii la joogo gurigii mayna ka xaaqdo hooyo qadadii ma karisay maxaa samaysay maandhay ka cooqabo maandhay yeel in la yiraahdo hayahooyo ay jiri jirtayna waa arki jiray oo saasaanu ahayno kusoo dhalanay oo kusoo tacabnay anigu gabar baan ahaa geel baan raaci jiray aabbahay ilaahay u naxariisto jannadii firdawsayd calaahid allah ka waraabiye wiilal iga waaweyn ma ulahayn wiilal waaweyn ma ulahayn aniga gabar baan ahaa anaana geel raaci jiray aroorin jiray wali aana ilaahna waa igu ogyahay allahna waa igu ogyahay geel ana aroorin jiray oo raaci jiray meeshii wiilku u taagnaa baana anigoo yar oo 10 jira anu taagnaayo geelan wax ka aroorin jiray ilaa iyo aan ka soo gaaray 13 anaa geela wax ka aroorin jiray anaa geela raaci jiray anaa aroorin jiray anaa dhaamin jiray kulli shay aabe soo rar noo iga daba keen magaaladii baan tuuladii baan aadayahay lagu soo raro iga soo daba keen hadhow markii uu waxeeyo oo geeli la shubo oo geeli cabana raac oo gurigi gee yeel baa lay dhihi jiray aabbana wixii maaragtaa aanan markaa anigu xoog u lahayn buu qaban jiray ilaahu ku naxariisto jannadii firdawsayd kaa waraabe marakan marka hadda oo la taagan yahay waxaad u malaysaa ilmihii inay waaridkii maamulayaan waaridkii inuu ilmihii noqday ilmihiina odagii iyo habartii maamulayaan maxaa keenaya waxaa keenaya ma garanayo diintii ma bedelmin dhaqankii Soomaalinimadana ma bedelmin laakiin wacdigaana na bedelay miyaa ma garanayo ilmihii ma yeelayna lagu leeyahay ma raba anigu saa ma raba inaan yeelo anigu saa inaan warmaandho halkaan dankuuguma jiro saana wax kaayin maya ma yeelayo aniga dantayda og anaa dantayda og maxay tahay ilmuhu dantay ogaan karaan qaraabo iyo Soomaaliyo waa rabaa inaan taa idin weydiiyo qurbaha ina bedelay bay idin la taa oo qurbaha adduunka bedelay miyaa Soomaalida markii qurbaha u soo baxday ilma yar baad dahaysaa warkac wax baro ama waxa yeel wuxuu ku leeyahay ana bacdayn baan baranay hadhow baan baranaya hadhow waxaynaya
maxaa adiga ka rabtaa anaa hadhow waxaynayo hadda khalaas waad ii sheegtay bas waad ii sheegtay waxaan u malaynayaa wax badan oo aan awal jiri jirin inay isbedeleen wax badan oo aan awal jiri jirin inay isbedeleen bay aniga hadda ila tahay in la waqtigii samaankii la yiri waqti waxa la gaari doonaa ilmaha yariiska ah uu waaridkii ma halkan waxaan ugu imid hadda carabtaan aan joogno waxaan ugu imid habar konton jira wiilkeed yar oo 10 jir oo la gal guriga markaan weydiiyo ay maxaa dhacay oo qoftaan weyn wiilkeeda yarka oo albaabka ugu soo xirayaan waxa la yiri waxa way marxum buu u yahay ilmahan hooyadii marxum buu u yahay oo muxuu ilmaha kanu garanayaayo islaantaan weyn aysan garanaynin wiilkaan yarka ceebta uu ka cararayo uu garanayo islaantaan weyn oo 50 jirka ma garanayso diinta tirbaydeen diintu ma dheena waa waxay la tahay anigu horta quraanka saa xoog uma aqaanin laakiin waxaan u malaynayaa inay taa qalad tahay baan u malaynayaa inay taa qalad weyn tahay bay ila tahay sababtoo qofkan 50 jirka ceeb u tuusa ka baqaynin oo ilmahan 10 jirka ama 7 jirka uu ka baqayaa maxay tahay islaantaan weyn maxaa guriga loogu xiray oo loo yiri gal guriga gal rag baan la hadlaynaa gurigii baa islaantii lagu xiray weynayd oo 50 jirka ahayd wiilkii yaraa 7 jirka ahayd baana u baxay maxay taa macnaha waxaan u qabanayaa wiilkan yarka 7 jirka ayo islaantan 70 jirka aysan garanayn oo ceebta wiilkan ka baqay 7 jirka ayo islaantan 70 jirka oo qabriga goyntiisa saar aysan ka baqaynin haddii alla laga baqayo iyada alla uga dhawo waa 70 jir haddii ceeb laga baqayo iyo in ceeb u timaado waxa ka weyn islaantaana 70 jira aqligii ay dadkan ku soo dhashay oo wiilkan diktoorka ama wiilkan daabadka sara ama duuliyaha ay ku soo korisay bayna qabtaa ee qof aqli leh oo xirxiran oo waalan ma ahan macnaha waxa iga yaabiyay dhaqamada markaad aragtid ma aragtaa waa wax lala yaabay macnaha wax ma faaji'a bay aniga igu noqotay oo wax badan aan ka fikiray wax badan ka fikiray hooyadu ayada ilmaheeda ceeb la nacab hooyadu ayada ilmaheeda qurux iyo sharaf la jecel hooyadu ayada ceeb nafteeda u nacab wax xun oo dhan hooyadu ayada ilmaheeda kala nacab wax walba oo xun hooyadu ayada ilmaheeda kala nacab ilmaheeda in wax xun lagu tilmaamo ayada kala nacab in wax xun lagu shaabadeeyo ama la yiraahdo ilmaha ma fiicna ilmaha suma wanaagsan ayada xataa haday ilmuhu xun yihiin oo dhibahayaan oo waxaynayaan hooyadu ma jecla mar caruurteeda inay xumaan ku sheegto mar walba ilmaheedu waa saliim waa ilmo wanaagsan oo sharaf iyo maamuus leh waa waxa macnaha kaliya iga yaabiyay diintana ay maaragta dadku ay ku soo qaataan oo dhahan diinta inay hooyadan 7 jirka guriga gasho wiilkan 7 jirka oo banaanka istaago dadku wax la qaybsado diinteenu meel ay ku tira anigu ma ana arag sababtay taa waagi asxaabti gabdhuhu gurigooda iyo waa talin jireen gabdhuhu ma ahayn cabiid guriga ku jiro oo aan hadli karin oo ma ahayn marka waa waxyaalaha aniga maskaxdayda mar walba ku soo noqnoqda oo iga faajiyo aan iraado dhibaatada ay gabdhuhu sheeganayaan midhaatanaaba ka kow ah kuwii gaalada joogay oo wadanka gaalada waxay dhahaneen waxaanu nahay xor baan la haystaa xorta la haystaa oo gaalanimada la qaatay dad baa gaal noqday oo muslimkii ka tagay ka baxay gaalnimada la haystaa ma midda ilmaha uurka ku jira yarka gacanba mar la soo goynayo anadka ka arkay baa jafde ilmaha lagu soo jarjaraya miyaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta waxa weeye wax walba asaga awoodiisu weyn tahay asagaana wax walba la weydiistaa ilaahay waxaan ka baryayaa oo anigu aan alla ka baryayaa maanta iyo maalin kasta iyo maalin walbaba alla aan ka baryayaa ilaahay inuu dambigeena dambi waaridkeenba dhaafo ilaahayna inuu nagu ammaaniyo adduunkan korkiisa aakhirana inuu nagu janneeyo adduunkan dhibtiisa iyo tahluukadiisa iyo masaa'ibtiisa meel walba ka jirtana ilaahay inuu naga hayo ilaahay taasaan weydiisanayaa raxmaanka ilmahana meelay joogaan baa allah inoo hagaajiyo allah inoo xafido ilaahay balaayadan socota ama belada ka socota ama baadiyaha ka socota ilaahay hayna ka hayo oo hayna ka xafido sababtay taa waxa weeye hadda
Soomaaliya adduunka waxaan ugu jeclahay oo adduunka ugu jeclaa waddankayga maan ugu jeclahay waddan maanta la yiraahdo la iigu bishaaray waddankeed tagi lahayd ilaah baan ku dhaartay oo Soomaaliya aan hayn inuusan jirin ilaah baan ku dhaartay waddan Soomaaliya aan ahayn oo aan maanta jeclaan lahaa inaan tago oo xayaatadayda ku noolaado aan Soomaaliya ahayn ma jiro laakiin waxaan dhalay caruur waxaan haystaa Soomaaliya aan aqoonin Soomaaliya waligood ma tagin mana ay arag dhagaha markay ka maqleen oo wadankii waa la isqabsaday gabdhihii markay maqlaan waa la isqabsaday gabdhihii baa la qabsaday gabdhihii baa la dilay keliyii baa laga baxay baqdin baa gashay wiilashii markii la yiri waa kana waa la xirayaa waa la dilayaa waa la yeelayaa irhaabi baa noqonaysaan irhaabi baa idin qaadanaya kana la sameeyay kana dhacay ayagana baqdin baa gashay mar walba markaan iraado warayn wadankeena aan waxa lagu leeyahay Soomaaliya waa meesha la isku dilaayo la isku qarbudaya miyaa u soconaa la wallahi ma naqdar baa lagu leeyahay nahna ma naqdar wallahi beledka waa beledka la isku dilo waa waxay YouTube-yada ka arkeen waa waxay Carabiga Carabta oo afkooda ka arkeen waa ma ay arag laakiin wadankii ma ay arag magac xumadaasna waa mid la rabo wadankii inuu sidaa magac xumadaas uu ku jiro waa waxa la isugu haysaysto dhibta loo wado waaba magac xumadaas aba la rabaaba waana dhibaato inteeda leeg waa dhibaato inteeda leeg magaca laftigiisa waa laga dagaalami karaa waa mid kaliya oo layna kala dagaalamayo hadda oo noqotay xabadii labaad noqotay weeye dhamaantiin walaalayaal ma rabo inaan kaliibka ku dheeraado ma rabo inaan maaragta waqti idinka qaatana ma rabo kaliibkan soo diraba inuu gaaban yahay oo yar yahay baan rabaa hadii alla yiraahdo dhamaantiin walaalayaal intaas waa intii bilowgii aan rabay inaan idinka kala hadlo insha Allah biidmillah mid dambe iyo mid dambana waa idin kala hadli doonaa insha Allah dhamaantiina waxaan leeyahay Allah inoo xafido caruurtii meel ay joogtaba qalad baa jira meel uu ka jira baana garanaynina qaladkaas waa mid nagu jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalayaal inagu waxaynu ku soo kornay inaan waaridka ka dambayno inaan waaridka warkiisa iyo sababtayta waaridka aniga ay dhalay aniga dhib ilama rabo hooyada iyo aabahay aniga waxaan ogahay inaysan dhibteeda ku farxayn oo dhib walba ii diidayaan laakiin ilmaha hadda qurbaha lagu dhalay waxaan arkaa inay moodidna iyagu isxukumaan inay iyagu arintooda og yihiin inay iyagu dantooda wadaan anaga dan u wadinin waxyaalo badan baan arkayaa oo hadda aan caalamkii ka arkayaa marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalayaal dambigeena dambiga arkan baa dhaaf ilaahay iyagana ha xafido meel ay joogaan ba dhamaantooda caruurta aynu dhalnay balad iyo baadiyaba meel ay joogaan ba Allah xafido kuwa ka baqaya in la qabsado la dilo oo wax la yeelana Allah ka xafido kuwa qurbaha jooga qurbaha lagu dhalayna ilaahay gaalada iyo islaamka laftigiisu dhibtiisu wataay Allah dhibtooda ina ka xafido ilaahay idankiisa waana idin salaamaya dhamaantii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh